muqdisho waa ay fidaysaa horumarkeeduna waa uu degdegayaa nabaddu waxa ay u horseeday dib u dhis xooggan iyo saxmad ay dadka iyo gaadiidkuba ku sii kordhayaan ugunka badan iyo kaarboon laba oxide-ka iyo cufka bulsheed ee daran awgiis dad badan baa rumaystay in aanay magaalada gudaheegu ahayn meel u roon ilmaha iyo waayeelka haddaba si loo helo bii'o ka caafimaad badan gudaha magaalada waxaa la hindisay dhismaha deegaan taya leh carta waa xaafada casri ah oo dhowaan dhismaheega laga hirgelin doono galbeedka magaalada muqdisho gaar ahaan duleedka degmada Daynile carta waa xaafad aad u qurux badan oo ay hirgelinteeda iska kaashanayaan shirkadda Global Beam Construction iyo maalgashada Cali Khayr Maxamed Nuur carta waxa ay ka kooban tahay 60 guri oo deegaan ah iyo 20 xarumood oo ah kuwa ganacsiga loogu talagalay carta waxa ay leedahay dugsi hoose dhexe dugsiga hoose dhexe ay xaafadani leedahay waxa uu isna dabooli doonaa baahida waxbarasho ee dadka ku nool xaafadda xaafadan casriga ah waxa u dhan goobaha madadaalada bulshada sida garoonka kubadda cagta iyo waliba wixii la mid ah waxa oo kale ay xaafadda carta leedahay bali ama barkad loogu talagalay in ay ku dabaashaan dadka deegaanku waa goob u qaybsan waayeelka iyo carruurta cid kastaana waxa ay ka helaysaa bogaagsi xaq jireed iyo xaq nafeed bale waxyaabaha aad halkan ka helayso inta kaliya ma ahan ee waxa sidoo kale ku yaala goobo nasasho sida beero yaryar oo aad u qurux badan waa beero leh meel la fadhiisto biyo dhaceeno dhir iyo muuqaal dabiici ah oo ku raali gelinaya carta waa xaafadii ugu horeysay oo nooceeda oo kala ah oo laga hirgeliyo magaalada muqdisho xaafadan oo kulansatay guud ahaan adeegyada bulshada waxa uu dhismaheegu bilaabi doonaa sanadkan ina soo haya ee 2015 bisha January carta village